السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح wanaagsan asxaabey saabtida rinta ku tago salaamay maanta xarayn la wadaago wax yar oo saabsan subaxii markaan soo qaab maxaan qabtaa maanta waa maalin jimcaha gurigan wada joogna cabtana ka tagaad imaadin hooyinka xarayn u sheego hooyo adigu waxa tahay tiirka guriga waxa tahay iftiinka guriga waxa tahay taban taabiyaha guriga adii aad adigu leexdid gurigaaguna uu leexaya awlaadaaduna sidoo kale way leexaya subax lagaaga baahaya adiga subaxii ugu horeyn naftaada ka bilowdid inaad naftaada ilaalisid si aad gurigaaga iyo reerkaaga iyo awlaadaada u ilaalisid qof aan isagu naftiisa ilaalinin nafa kalena ma ilaalin karo waan ognahay hooyo Soomaaliyeed nafteeda waxay ka hormarisaa ilmaheeda iyadoo gaajoonaysa waxay dhargaysaa ilmaheeda iyadoo daalan waxay u socdaa ilmaheeda iyadoo hurdoonaysa waxay u kacdaa ilmaheeda laakiin adiga wax lagaaga baahan yahay inaad maad aragtay sida adiguna aad u taagnaan kartid u socon kartid inaad ilmahaaga dartii isku ilaalisid waayo waxaan joognaa dhul qurbeed dhulka qurbaha kuma haysana garab waxaad buuxinaysaa boos kasta looga baahnaa inaad haysatid hadday noqoto hooyo hadday noqoto walaal hadday noqoto ilmaati hadday noqoto ehel hadday noqoto garab iyo cid kastoo ku caawin lahayd booskaas ayaad adigu iskugu jirtaa marka waxaa lagaaga baahan yahay si aad u noolaatid ood u socotid ood u talaabsatid inaad naftaada ilaalisid waa run waqtigu kugu yaryahay waan ogahay taa aniga waa sidaas oo kale waan ogahay waa daalantay aniga waa sidoo kale waan ogahay awlaad baad korinaysaa aniga waa sidoo kale laakiin waxa lagaaga baahan yahay inaad maad aragtay in ilmahaaga dartii u noolaatid oo aad isku ilaalisid mooraad is ilaalisid ilmahaagana waad ilaalin kartaa haddii aanad cunto kugu filan cunin hurdo kugu filan seexan biyo kugu filan cabin waqti kugu filan qaadan waxaad noqonaysaa qof daciifa qofku hadduu daciifana wuxuu qaban karaa malahan saa daraadeed waxa lagaaga baahayay inaad cunto khudrada inaad cabto biyaha inaad cabto fitamiinada iyo wax ogaatid waxa jirkaaga ka maqan taas waxay sabab u noqonaysaa inaad noqoto hooyo caafimaad qabta hooyo caafimaad qabta waxay soo saari kartaa ilmo caafimaad qaba waxayna soo saari kartaa bulsho caafimaad qabta sidaa daraadeeda naftaada ku horumari naf kastaba waad guuleysanaysaa ilaahayna xiftiyo awlaad hayna la koriyo tacabkan beerana mirihiisa hayna siiyo farxad badan baan idin rajaynayaa ana ii soo rajeeyaa wax kastoo ina dhimana rabbigu haynaga qabto dadkaan la noolahayna ilaa shirkooda haynaga xijaabo oo khayrkooda hayna soo xigsiyo markastaba dhibaatooyinka ka maqan gal ilaahay ka abuurtay markasta ku xidhnood ilaahay subxaanahu wa tacaala una noolo ilmahaaga dartii